kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal barnaamijkeena raadraaca toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa fanaanka daahir maxamuud muuse oo badankiin u taqaanaan dayaxdanuushe. dayaxdanuushe sanadihii sagaashameeyadii ayuu ku dhashay deegaanka ceelmacaan ee gobolka shabeellada dhexe. bilowga noloshiisii iyo kafaalooshaha aayihiisii kale waxa uu ku hanaqaaday waayo qurxoon iyo waqti guulaystay. dalka nuurkiisii waa hogaamiyihii ugu horeeyey ee fanka muqdisho u curtay tan iyo burburkii siyaasadda Soomaaliya. dayax waxa uu fanka ku dhiiraday iyadoo adkeed xaaladda caasimadda oo keliya fanka ay dhagaystaana uu ahaa reer Hargeysa. dadaal iyo juhdi dheer kadib bulshada muqdisho waxaa dhagaha Hargeysa ka soo wiciyay dayaxdanuurshe oo fanka la soo galay heeso ay jecleysteen badi Soomaalida dunida iska badaaye tooshkii Hargeysa ka daarnaa muddo sanado ah. dayax bulshada Soomaalida waxa uu dhagahoodii ku qabsaday heeskii ujeedada badneed ee mas'alooyin inkastoo ay jireen heeso kale uu qaaday fanaanka. مسألوا يا أبليو ومشاكل قوليا وحمان طيبو دعي ورقدني بدأي مسألوا يا أبليو ومشاكل قوليا وحمان طيبو دعي ورقدني بدأي حيلت مغطو ودو أنسوغايا ميتكالي تراغو مهرو كدعي حيلت مغطو ودو أنسوغايا ميتكالي تراغو daahir waxa uu hantay marwo ka mid ah marwooyinka ugu wanaagsan dunida taas oo ay nolosha ku midoobeen sanadkii 2015. marwo farxiyo dayax iyo marwo farxiyo waxa hadda nolosha dunida kula midaysan caruurtooda hodan iyo hanad. xidigan muddada kooban fanka ku jiray ayaa bulshada inteedii kale u aaminay rugcada sagaashameeyadii fanka ku xamaalanayay. waayaha kooban ee fankiisa waxa uu bandhigyo caalami ah ku soo bandhigay Afrika, Aasiya iyo qaybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya. dayaxdanuurshe waxa ay saaxiib dhow wada ahaayeen hogaamiyaha shirkaddan. waxa uu ii sharaxayaa waxyaabaha u gaarka ah ee fanaanka. waa maasan tahay xasan runtii caawa waxaa miiska noo saaran taariikh nololeedka waayihiisa fanka fanaanka daada yar ee dayaxdanuurshe oo ka mid ah fanaaniinta waqti xadarkan aadka loo dhageysto looguna jecel yahay dhammaan bulshada Soomaalida. runtii intaan u gudagelin maxaan ku taariikhda fanaanka iyo intaan ka aqaano anigu waxaa laga yaabaa dadka daawanaya muuqaalkan inay isweydiiyaan janaalka ay daawanayaan ma Dudur Media mase waa janaal kale. waa Dudur Media. wax walba oo fanaanka iyo shirkadda hore u dhexmaray waxaa ka weyn wanaaga hadda naga dhexeeya annaga iyo fanaanka. runtii haddaan u gudagalo inta aan ka aqaano iyo xilligaas baranay dayax waxaan baranay 2016 xilli Muqdisho aroos oo ka tumaayay. markaas waxay iga muuqatay dad jeclaysi iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayuu aad u soo dhaweynayay. wuxuuna qaadanayay talooyin oo ku horumarin karo waayihiisa fanka. waxyaabaha kale asla dayaxdanuurshe waa kaabeen amba kaalin weyn ka qaateen waxaa ka mid ah mushisanada ugu weyn Subxaanyo Salimada. waxaa kale aad u garab istaagaan asla Abaan Baarqab oo jeclaystay in fanka Muqdisho oo mugdi ahaanin. waana sababta keentay in dayax markuu soo baxay fanaaniin kale oo Muqdisho ay soo baxeen deetana bulshada Soomaaliyeed magaalada Muqdisho oo laga aaminsanay magaalo fankeeda oo aan kobca lahayn in aad loo wada dhageysto. abwaanintaas iyo mushisanadii runtii soo garab qabtay ayaa qayb weyn ka qaatay ayaan isdhihi karaa xidigan daada yar ee bulshada Soomaaliyeed waqti xadarkan gilgilayo. waxyaabaha kale asla dayaxdanuurshe wuu gaaray heerkan waxaa ka mid ah marwadiisa marwo farxiyo
runtii aad bay u adag tahay markaa fanaan tahay oo aada hooy yeelato in fankaaga oo sii kobco. Inta badanna fanaaniinta guursaday waxaan ognahay inta badan markay noloshooda guurkay ku bireen in fankoodii ay ka hareen, noloshoodana siyaabo kala duwan maxaan ku rahdaa ay noqotay. laakiin marwadiisa farxiyo ayaa garab istaagtay, waayiisa fankana iyo riyadiisana runtii inay rumeyso ku garab taagneed. aad bayna u mahadsan tahay runtii. bulshada Soomaaliyeed waa inay ku daysadaan, ama fanaan walba oo guursanayana waa inuu guursadaa maxaan ku rahdaa marwo farxiyo haweeney u dhiganto, waayo rayadaada qof ku rumeyn kara dunida hadaa ka hesha runtii lama qiyaasi karo runtii farxadda oo shaqsiyan qofkaas ku nool yahay. waan jeclaan lahay waxyaabo badan oo aan dayax ka aqaano oo dabacad wanaagiisa iyo dulqaadkiisa aad u fara badan runtii inaan halkan kusoo koobo, laakiin waqtiga ay ii diidaayo. laakiin keliya waxaan kusoo koobi karaa dayax runtii heerka maanta uu joogo shaqsiyan iyo dadaalkiisa uga gaarsiiyeen, marwadiisa iyo waanintii muqdishona way soo gacan qabteen, wayna ka go-need aragtida ah inuu noqdo fanaan buuxo bulshada afka Soomaaliya ku hadasho ay aad u wada dhageystaan. toob halkaas ayaan kusoo koobayaa. dal nuurshe waxaa lagu xusuusan doonaa heesahan hirgalay ee dhegaha Soomaalida ka guuxaya. markaad cadowi u dhan nacabka ka waabiya adoo waranaysitaan anigu weelka adaya. adduunyadu waa ceshiyo caawiya maalmaan badnayn, cimrigu waa kooban yahay calafkun waa mid qoraya. caashaq dooni marnaba ku jikaari maayo, adoo jannay ahaaday haween ku ag joojin maayo, adoo joogi caashaq dooni marnaba ku jikaari maayo. hadaadiila jirin adduunka gacalooy jirada ka dawoobi maayo farxiyoy, dartaajalka quudan maayo qaariyey jidiinkana raadsan maayo macaney. hadaadiila jirin adduunka gacalooy jirada ka dawoobi maayo farxiyoy, dartaajalka quudan maayo qaariyey jidiinkana raadsan maayo macaney. xidigan ayaa waxaa gaar u ah dulqaad, dabeecad wanaag, dhoola caddeyn joogto ah, waana midda keentay ka raali ahaanshaha bulshada Soomaaliyeed. daawadayaal, waa barnaamijkii raadraaca toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynay dayax dal nuurshe. toddobaadka xigana waxaan ku soo qaadan doonaa mid ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed. lagu xanto lagu xusuusta ayaa ka dambeysa soo saaristii Mohamed Muuse Amiin Gulfaam, waxaana farsamadan quruxda badan inoo soo diyaariyey Nuur Maxamed Mukhtaar Saba Ozil, tabiyuhuna waa Xasan Mustafa Isxaaq Xasan Toob. nikaaxaaga waan ku nastay hanusqaami waliga, nikaaxaaga waan ku nastay hanusqaami waliga. كان سوقني يخضر نور انت متنورينا انا شفت وعينيه نبي برواقه ربي نقدق نصري ناشد نصري كان سوقني يخضر نور انت متنورينا انا شفت وعينيه